dagaal qaraar oo lagu hoobtay ilaa iyo haddana meydadka la kala guranayo ayaa maanta ka dhacay deegaanka Coosweyne ee gobolka Galgaduud. wararka ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qasaraha dhimasho iyo midda dhaawac ah ee ilaa iyo hadda ka dhashay dhaawacyada halka la kala geeyay iyo sababta rasmiga ah ee dagaalkan iyo wax uu salka ku hayo ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. dhinaca magaalada Laascaanoodna ciidankii ugu badnaa oo military ah ayaa lagu arkayaa wadooyinka waaweyn ee magaalada halka kuwa kalena furimihii dagaalka loo diray. ku dhawaad 50 gaadiid oo isugu jira kuwa waaweyn oo hubka culus ay saaran yihiin iyo kuwa hubka fudud ayaa lagu daabulay gudaha deegaanada dhowrka ah ee hoostaga gobolada Sool, Sanaag iyo Togdheer. wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. soo dhawaada qodobadaas iyo faahfaahinno kala duwan oo aan halkan idinkugu hayno ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal. mar kale soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horeysay ee aad soo booqatayna waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheer nala gaarsiisaan sidoo kalena nagu soo biirtaan si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida idinka oo kale. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. aynu ku bilowno deegaanada hoostaga gobolka Galgaduud dowlad goboleedka Galmudug waxaa si gaar ah maanta deegaan lagu magacaabo Coosweyne ee gobolkaas uga dhacay dagaal qaraar oo la isku adeegsaday hub leh noocyo kala duwan oo waliba hubka culus iyo sidoo kale kan fudud isugu jira. waxaa la warinayaa in dagaalka galankii dambe ee maanta uu bilowday ilaa iyo haddana la maqlayo rasaas goosgoos ah oo dhinacyada isku weedarsanayaan deegaanadii ay ku dagaalameen iyo tuulooyinka hoostaga deegaanka Ceeldheer ama deegaanka lagu magacaabo Coosweyne ee gobolka Galgaduud. wararka ayaa sheegaya in maleeshiyad hubaysan oo dhinacyadan ka soo kala jeeda ay subaxnimadii hore ee saaka ay isku horfadhiyeen gudaha deegaankan iyadoo ugu dambeyn la wariyay inay gacanta isugula tageen salaada casir kadib. waxaana la wariyay in qasaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkaas uu ka dhashay. inta la xaqiijiyay tiro dhan oo kor u dhaafaysa 10 ruux ayaa geeriyootay halka tiro kalena la sheegayo inay dhaawacmeen oo waliba intaas ka sii badan. dhaawacyada ayaa la wariyay in loo kala qaaday Ceeldheer iyo sidoo kale Galhareeri iyadoo halkaas wararka ka imaanaya ay sheegayaan in dhaawacyada qaarkood ay yihiin kuwa halis ah oo mar walba laga cabsi qabo inay dhimashadu sii kororto maadaama inta badan maleeshiyaadku wali aysan deegaanadii ku dagaalameen ka bixin sidoo kalena ay halkaas ku sugan yihiin. ma jirto ila ka madax bannaan oo xaqiijin kara qasaraha rasmiga ah laakiin waxaa la warinayaa in xaaladdu ay aad u kacsan tahay marba marka ka sii dambaysana la filan karo dagaal kale oo dhexmara dhinacyadan. wararka hordhac ah waxa ay tilmaamayaan in dhinacyadan ay isku haystaan sida la sheegay dhul deegaan ah oo maalmihii la soo dhaafay si weyn doodeedu ay u taagnayd dhinacyadana ay isu horfadhiyeen. laakiin taa waxa ay keentay in dagaal maanta uu ku dhexmaro dhinacyadan deegaanka lagu magacaabo Coosweyne ee gobolka Galgaduud ka tirsan. waxaase wararku ay sheegayaan in xaaladdu weli ay kacsan tahay dhinacyadu ay horfadhiyaan rasaas goosgoos ah la maqlayo sidoo kalena maleeshiyaadku ay kala helayaan gurmadyo kala duwan oo ka kala imaanaya deegaanada dhowrka ah ee gobolka Galgaduud dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale dhinaca gobolka Mudug oo iyadana la warinayo in ciidamo kale oo hubaysan oo dhinaca beelaha dagaalamaya u kala heelanaya ay ka imaanayaan. inkastoo ilaa iyo hadda war rasmi ah aan laga helin maamulka gobolka Galgaduud iyo guud ahaanba dowlad goboleedka Galmudug haddana waxaa cabsi xoogan ay ka taagan tahay deegaanada iyo tuulooyinkii maanta lagu dagaalamay ee gobolka Galgaduud dowlad goboleedka Galmudug. dagaalkan beelahan dhaxmaray ma ahan kii ugu horeeyay mana ahaan doono sida muuqata kii ugu dambeeyay inkastoo aysan jirin wax waan ah. waxaa dhowr mar la isku dayay in la hor istaago beelahan sidoo kalena dagaalkooda lagu bedelo gogol nabadeed la isuguna keeno laakiin waa ay suurageli weeday. maamulka Galmudugna waan uu bilaabay ayaa ugu dambeyn la tilmaamay inuu kaga baxay odayaashii dhaqanka ee qaybta ka ahaa dadkan dagaalamaya ee waliba la sheegay in dagaalkoodu uu xilligan sii xoogaysanayo cabsi xooganna dadka shacabka ah uu ku dhex abuuray. marka laga soo tago Galmudug dowladda dhexe ee Soomaaliya oo iyadana mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay dadka shacabka ah ee isku dilaya dhulalka iyo deegaankaba inay kala qabato ilaa iyo hadda ma jirto ciidan dowladeed oo rasmi ah oo kala dhaxgalaya beelaha ku dagaalamaya Coosweyne iyo kuwa kale oo dhowr ah oo iyagana saacadihii ilaa maalmihii la soo dhaafay la tilmaamay inay isku horfadhiyeen isla qayb ka mid ah gobolka Galgaduud dowlad goboleedka Galmudug. dagaalada beelahan u dhaxeeya ayaa sii xoogeystay deegaanada gobolka Galgaduudna waxa ay noqdeen dagaaladu tusbax xariga goostay maalinba maalinta ka dambaysa. waxaa la dilayaa rag haldoor ah iyo sidoo kale dad barimageeda ah oo caruur iyo habeen ay ku jiraan
kuwaas oo qaarkood xitaa ay qasabtay inay ka baxaan guryahooda isla markaana deegaan jabi ahaan ama cimilo ahaan aysan la qabsan karin. waxaase la warinayaa in si loo badbaadiyo caruurta iyo haweenka qaybo ka mid ah deegaanadii lagu sugnaa laga baxiyey sidoo kalena la geeyey meelo kale oo laga yaabo inay ku ammaan helaan maadaama aysan jirin ciidan si rasmi ah xilligan u ilaalinaya. gobolka galgaduud aan intaas kaga tallaabno dhinaca deegaanada waa gobolka Sool ee dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya. magaalada Laascaanood warar iyo xogo kala duwan oo ka imaanaya waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay ciidankii ugu badnaa lagu dhex arkay gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kuwaas oo isaga kala gooshaya wadooyinka waaweyn ee magaalada. taa bedelkeed isla sidaas oo kale ciidan kale oo tirabeel ah oo militariga maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya ah ayaa loo diray xuduudda Somaliland ay la wadaagto saddexda gobol ee kala ah Sool, Sanaag iyo sidoo kale Togdheer oo iyadana laga cabsi qabo in halkaas ay soo dhoobto Somaliland ciidankii ugu badnaa kadib booqasho taariikhi ah oo magaaladaasi Laascaanood uu ku tagayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. booqashada madaxweynaha awgeed ciidamadan ayaa la tilmaamay in furimo kala duwan loo kala diray si looga fogaado qalalaase iyo carqaladeen markaasi lagu sameeyo safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Laascaanood. inkastoo magaaladaas ay xilligan ka soo kabanayso dagaallo sokeeye oo muddo sanado ah ka socday gaar ahaan sanadkii 2024 ilaa iyo 25 bilowgeedii waxaa la warinayaa in xaaladeedu hadda ay tahay mid degan laakiin magaalada lagu arkayo ciidamo tirabeel ah oo isugu jira military iyo booliis kuwaas oo sugaya ammaanka guud ee sidoo kale safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qaybo ka mid ah magaalada waxaa la tilmaamay in la xiray si loo markaasi sugo ammaanka guud sidoo kalena boorar tirabeel ah lagu xardhay wadooyinka waaweyn ee soo gala iyo kuwa ka baxa gudaha magaalada Laascaanood safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. isla sidaas oo kale waxaa la warinayaa in ciidamadan furimaha loo diray durba ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo howlgallo toos ah oo ay doonayaan inay ka sameeyaan meelaha ay tuunsan yihiin in laga soo geli karo maadaama xuduudda labada maamul ee Somaliland iyo waqooyi bari ee Soomaaliya waa Somaliland ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah markaasi u xadiday amaba u xadeysay laakiin kaliya ay tahay in deegaano si awood ah lagu kala qabsaday ciidamadu ay ku kala sugan yihiin xilli kastana la filan karo inuu dagaal ka dhex qarxo. isla dhinaca kale haddii aynu eegno magaalada Laascaanood waxaa guud ahaanba la soo kordhiyey leerar kale oo hor leh kuwaas oo la doonayo in dadka shacabka ah iyo guud ahaanba madaxda halkaasi booqanaysa ay ku diirsadaan quruxda magaalada kadib dagaaladii dhacay oo halkaas ku dhex maray maamulka waqooyi bari ee xilligaas loo aqoon jiray SSC Khaatumo iyo sidoo kale maamulka Somaliland oo isagana qayb ka ah Soomaaliya. waxaase la warinayaa in taa bedelkeed Somaliland laga cabsi qabo ma laga yaabo in ciidamo kale oo dheeraad ah ay ku soo daabusho xuduudda iyadoo dhawaan taliyaha ciidanka militariga ee Somaliland uu tilmaamay ciidamo tababar loogu soo xiray gudaha magaalada Hargeysa uu u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal dhinac kasta leh ama cadow gudaha ha noqdo ama cadow banaanka ha noqdo. waa sida uu sheegay iyadoo Somaliland cadowgeeda banaanka iyo gudahaba ay u taqaano Soomaaliya taas oo xilligan ka dhigan in wax walba oo gudaha magaalada Laascaanood ka dhacaya laga taxadiro. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu noqonayaa madaxweynihii labaad ee booqasho ku taga gudaha magaalada Laascaanood marka laga soo tago marxuum Allah u naxariistee Maxamed Siyaad Barre oo isagana mar booqday gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waxaa sidoo kale jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagana in uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyay ee tan iyo markii uu booqday Maxamed Siyaad Barre sidoo kalena si nabad ah uu uga soo noqday. waxaase la warinayaa in safaradaas dhammaantood ay ku qotomaan mashaariicyo horumarineed iyo caleemasaarka madaxweyne Fardhiye oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga qayb galayo gudaha magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. wixii ku soo kordha saaxiibayaal guud ahaan wararkaasi oo idil dagaalkan oo ilaa iyo hadda la warinayo in uu ka socdo deegaano hoostaga gobolka Galgaduud faahfaahinada kale ee ka imaanayana barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. haddii aad ilaa dhamaadkana la soo gaartayna waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faladan aragtiyo nagu wadaagtaan waa lagu dilay nookaas